madaxweynaha wakhtiga ka dhammaaday farmaajo iyo xulafadiisa ayaa maalinkii labaad shir u gaara waxa uga socdaa xerada xalane halkaasoo amnigooda aad ugu ilaalinayaan ciidamada howlgalka midowda afrika ee amisom hogaamiyeyaasha galmudug koonfur galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa fadhigan xaadir ku ah kaasoo dad badan ay u arkaan inaan looga hadlayn arrimo aad muhiim u ah maadaama dhammaan dadka kulansan ay isku aragti yihiin saxaafadda ayaa loo diiday inay tebiyaan wararka ku geedaaman kulanka waxaana lagu wargeliyey inaysan maanta hoolka shirka aysan tegin warar ku dhadhow fadhiga ayaa warbaahinta nation waxay u sheegeen in kulankan warbixin looga dhagaysan doono taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar kaas oo uu ku soo bandhigi doono shaxda amniga doorashooyinka kulankan oo qorshe u ahaa in dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay ka soo qayb galaan waxaa qaadacay madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland caqabadaha ku horgudban wadahadallada xalka waara loogu goobayo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka soomaaliya waxa ay u muuqdaan kuwa sii kordhaya arrintaas oo dhabbaa u xaaraysa in muranka iyo qallaasaha dastuuriga ay sii daba dheeraadaan doodda oo markii hore taagnayd helidda goob ammaan ah ajenda la isla ogol yahay iyo in ciidamada aan la siyaasadayn waxaa hadda ku soo korodhay inay fadhiga wadaxaajoodyada ka soo dhex muuqdaan dhexdhexaadiyayaashan waxay u badan tahay inay noqon karaan saaxiibada caalamka lama soo oga sida maamulka farmaajo ee wakhtigu ka dhammaaday u oggolaan doono shuruuddaas ka imanaysa mucaaradka dhinacyada u ololeynaya qodobkaasi waxa ay sheegayaan in dhexdhexaadiyayaasha ay ka mid yihiin damaanad qaadayaasha fulinta heshiis kasta oo ka soo baxa kulanka maadaama heshiisyadii hore ay dhaqangeli waayeen ku dhowaad 2 bilood soomaaliya ayaa waxa ay qaadanaysaa waayo aragnimo kale oo qallaasa dastuuri ah hubanti la'aan in dalka si nabad ah uga baxayo marxaladda kala guurka iyo goorta ay dhacayso doorashooyinka odorosyada waa ay kala duwan yihiin balse waxa keliya ee looga baaqsan karo waa xal dhow cabshakuur maxamed maxamuud warbaahinta nation